musharaxiinta xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo khudbada ka horjeediyay golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedkooda, waxqabadkooda iyo qorshayaashooda siyaasadeed ee ay ku hogaaminayaan Puntland haddii la doorto. musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayay ka mid yihiin qaarkood kuwa xilkan horay ugu soo tartamay, waxaana ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey, wasiiro ka tirsan xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kala ah wasiirka arrimaha gudaha Cabdulaahi Timacade iyo wasiirka duulista hawada iyo garoomada Axmed Karaash iyo waliba Cabdi Qowdhan oo soo noqday wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Cabdiraxmaan Faroole. musharaxiinta xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa ballan qaaday haddii la doorto inay ka shaqayn doonaan adkeynta amniga, sareynta sharciga, qabashada doorashooyin qof iyo cod ah, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xiriir wanaagsan oo dhex mara dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedkan. muddadii aan xilkan hayay waxaa si gaar ah xafiiskayga u hoos imanayay mashruuca ballaaran ee horumarineed ee dowladaha hoose JPLG programka loo yaqaano. mashruucaas oo ah mashruuca ugu da'da weyn Soomaaliya haddeer runtii waxqabad badanna laga gaadhay hadday tahay bilicda, hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay wixii kale ay qabanayaan ama iskuulada ha ahaato ama caafimaadka ha ahaato ama biyaha ha ahaatee. kaas oo muddo dheer soo socday waxaanse ku guulaysanay ilaahayna nagu garab galay inaan sii ballaarino oo muddada aan xilka hayay degmooyin cusub oo hor le aan gaadhsiiyey. waxaad ka waraysaan mashruucani 7 degmo ayuu ku bilaabmay. intii aan joogay waxaanu ku heshiinay qoladan 5 hay-adood in sanad walba 2 kale lagu daro. waxaan ku daray muxuu ahaa 2 tuulad Galdogob iyo tuulada la yiraahdo Burtinle. 2daasaan ku daray wuuna ka socdaa hadda. waxaan jecelahay inaan wax ka qabto miisaaniyadda in lagu dhaqmo, in dakhliga la kordhiyo, kharashkana la yareeyo. sidaa awgeed baa shaqaaluhu iyo ciidamadu mushaharkooda ku helaya. waxaan dhaafay 2014 xilligan oo kale waxaan si soo taagay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga Camey iyo aniga isku soo hadhay, isagaa ku guuleystay. sababaha igu kalifay inaan si soo taago xilkan mudanayaal iyo marwooyin waxaan goobjoog ka ahaa oo qaybtoodna mas'uuliyad wasaaradeed ka soo qabtay maamuladii soo maray Puntland tan iyo xilligii la aasaasay 1998. mudanayaal iyo marwooyin waxaan si aad ah uga warhayaa xaaladihii uu dalku soo maray iyo ta uu maanta ku jiro haddii ay tahay dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. waxaan kala qaban doonaa madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee Puntland hagaajinta iyo kor u qaadista dhaqaalaha dalka iyo weliba kaabayaashooda. waxaan tayeyn doonaa hay-adaha dhaqaalaha dalka guud ahaan iyo shuruucdooda, iyadoo shacabka reer Puntland igu yaqaaniin muddadii aan kala shaqaynayay maamulkii madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha waxqabad muuqda, gaar ahaan doorkii aan ku lahaa sicir bararkii baahsanaa ee wakhtiga Puntland ka jiray. doorashadan ayay ku tartami doonaan tiradii ugu badnayd oo musharaxiina, waxaana madaxtooyada ku loolamaya 32 musharax. 8 bisha Janaayo oo maalinka beriya ku beegan ayay golaha wakiiladu dooran doonaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 5 sano ee soo socota hogaamin doona dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Garowe.